kuuriyada waqooyi waa dal go'doonsan faqri ah balse si xad dhaaf ah xagga ciidanka ugu horumarsan. Hoggaanka dalkaasi waxay leeyihiin hal ujeedo oo muhiim ah taas oo ah sii jiritaan. Sababtaasi darteed ayayna dhaqaale badan u geliyeen kobcinta hubka nukliyeerka iyo barnaamijyada gantaalada ridada dheer si ay ugu noqdaan waxa ugu dambeeyay ay isku difaacaan. Isticmaal kasta ee hubka nukliyeerka ayaa horseedi kara musiibo aan la qiyaasi karin. gaar ahaan Kuuriyada Waqooyi laf ahaanteeda waxa ay u badan tahay inay xukuumadan ay ka badbaadi doonin xasarad dhacda, balse walwalka ugu weyn taas ma ahan. halista ugu weyn waxay ka taagan tahay in dagaalka afka ee u dhexeeya Waqooyiga Kuuriya iyo Mareykanku uu hadda isu rogo ficil. Kuuriyada Waqooyi waa dal ku caan baxay inuu isticmaalo awood, waxaana dhici karta in sidii hore oo kale mar kale ay xoog iyo awood isticmaasho. bishii March sanadkii 2010 waxa la rumaysan yahay in Kuuriyada Waqooyi ay quusisay markab yar oo ay lahayd Kuuriyada Koonfureed, waxaana dhici karta in sidaasi si la mid ah haddii uu muranka hadda jira si xoogaysto ay mar kale Koonfurta Kuuriya bartilmaameed u noqon karto ficilada Kuuriyada Waqooyi. ciidamada Waqooyiga Kuuriya waa kuwo aad uga tiro badan kuwa Koonfurta, waxaana ciidamadaasi ay joogaan aagga militariga ka caagan labada Kuuriya u dhaxeeya. waxaa si joogto loo sheegaa in gantaalada caadiga ee Waqooyiga Kuuriya ay saacado gudahood ku gaari karaan magaalada Seoul ee caasimadda u ah Koonfurta Kuuriya. xagga tayada waxa aad ugu horeysa Koonfurta Kuuriya oo sidoo kale taageero buuxda ka hesha dalka Mareykanka oo ah kan dunida ugu casrisan. dagaal kasta oo dib uga soo dhex cusboonaada labada Kuuriya sidii kii dhacay 1950 waxa ka dhalan kara khasaaro ballaaran oo xagga rayidka uma badna hadaba in uu dhasho dagaal labada Kuuriya u dhaxeeya waqti xaadirkan, balse waxaa jirta halista ah in Waqooyigu awoodeeda ciidan u isticmaasho dandaansi iyo tallaabooyin kale oo dhalin kara xasarad guud. marka laga soo tago ridada ay gaari karaan gantaalada Waqooyiga Kuuriya, waxaa jira hubka kiimika oo uu haysto dalkan Waqooyiga Kuuriya. waxaa kaloo la rumaysan yahay inuu haysto Kuuriyada Waqooyi hubka loo yaqaano biologicalka ee halista badan. waxaa kaloo Waqooyigu ay leeyihiin ciidamo gaar oo aad u tababaran iyo kooxo loo carbiyay inay u dusaan dhanka Koonfurta oo ay qalqalgeliyaan. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay ku guuleysatay tijaabada hubka nukliyeerka oo xambaari kara gantaalada ridada dheer. waxaa kaloo Kuuriya intaasi ku dartay inay si buuxda ugu guuleysatay tijaabadii lixaad ee hubkeeda nukliyeerka. xukuumadda Pyongyang ayaa sheegtay inay tijaabisay bambaano hydrogen oo ka awood badan tan bamka atomikada. khubarada la fagura arrimaha gaashaandhigu waxay sheegeen in sheegashadani ay tahay in si taxadar loo eego, balse Kuuriyada Waqooyi awoodeedu ay sii ballaaranayso oo aan la dhayalsan karin. markii ugu dambeysay ay tijaabiso nukliyeer samayso Kuuriyada Waqooyi ayaa ahayd September sanadkii 2016. Kuuriyada Waqooyi ayaa iska dhagatay cadaadiska caalamiga ee ku baaqayay inay joojiso tijaabada gantaalada iyo nukliyeerka. sanadkii 2003 ayayna ahayd markii Kuuriyada Waqooyi ay ka baxday heshiiskii qaramada midoobay ee dhigayay xayiraadda hubka khatarta badan ee wax kumaada. xilligaas wixii ka dambeeyeen waxay cagta saartay sanadishada dhammaan noocyada hubka kala duwan. sanadkii 2006 ayayna ahayd markii ugu horeysay Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso gantaal nukliyeer.